والله يا بالله تالله كن iyo kow gooraan ku jecelahay kaas waa qof la wada yaqaano waxaan leeyahay kun iyo kow gooraan ku jecelahay walow aadan adigu waxba ka ogeyn weligeynaba inaad aragtayba aanan u maleeynin maantana inaan kaamirada horteeda ka sheego ayaa duruufuhu kalifeen waalidkiisii ay kala go'een dhammaan saaxiibadiisii nolosha ayaa si joogta ah uga aflagaadeeyo xanuunna halisa ayuu ka qaaday istaaga ayuu ka dhacaa si joogta ayuu maalin walba u suuxaa haddaba waxaasoo idil waxaa ku sababay jacayl iyo sidoo kale muxubo u qaaday gabar caan ka ah baraha bulshada haddaba gabadhan oo runtii u waayay meel uu fariintiisa u marsiiyo ayuu rafaadkeeda si maalinlaha ugu silcayaa wadooyinka magaalada Muqdisho ayuu dhaxmaraa waxa uu dadka caanka ah goobaha kula kulmo weydiiyaa halkii uu kala xiriiri lahaa iyo inay ku caawiyaan meel uu u maro bal haddaba waa kan isagoo waayaha iyo wacaalka uu ku nool yahay ka sheekeynaya wiilkan dhalinyarada ah ee dhibaatada jacaylka la nool waan dhowhay aad iyo aadan ugu dhowhay barnaamijka aadan ugu dhowhay magacaaga ugu horeyn magacaygu waa abwaan onkod suncabe musharax nalka sida bulshadu ii garan og tahay magacaygu sidaas weeye walaal laba magac isku kala dhahaa musharax nalka iyo abwaan onkod suncabe aan ku magac dheerahay ama onkod daahir nuur markii macnaha magac saddexan la yiraahdo waa saa ogtahay barnaamijkan waa qiso maanta qisada meeshaan aragtid inaad ka sheegtid qiso adiga kugu dhacdaa mise waa qiso qof kale ku dhacday run ahaantii walaal horta aad u mahadsan tahay waxa la yiraahday waxaad qarsato waxa la yiraahday waxaad qarsato aday ku qarsadaan run ahaantii tani waxa weeyaan gambasho leh ma aha run ahaantii aniga barnaamijka qisadu waa qiso aniga igu dhacday waxaan halkan u imaaday barnaamijkaana aan maanta maxaa la yiraahdaa diyaar ugu soo noqday qisadayda inaan ku sheego waana qiso aniga igu dhacday hadda naftigeedana weli aan dhammaan runtii qof ayaana jecelahay muddo maxaa la yiraahdaa duruufuhu waxay igu qasabtay kadib markii aan waayay meel aan wax ka maro muddo 3 sano ku dhawaad 4 sano ah na aan banaanada la joogay waxay igu qasabtay inaan kaamirada imaado dareenkaygana sheegto maadaama aan nin raga oo wax jecel ahay taasuna ma ahan mid aan ku kaftamayo mana ahan mid aan ka raadinayo waxyaabo gaar ah ama hadal hayn qisada jacaylka markii la dhaho ama jacayl markii la dhaho mid loo kala saaraa qof aad jecel isla wadeen miya iswa qof aad kaliya aad jecleed iswa qof adigu aad jecleed oo ku ogeyn beenaa jeceshay in kale run iyo ilkaba waa la cadeeyaha la yiraahday horta mar walba ilaahay ayaa mahad iskale igu simay maanta arintii aan ogaay ee mugdiga badnayd ee muddo 5 sano ku dhawaada banaanada igu ragaadinaysay maxaa la yiraahdaa inaan maanta ka hadlayo oo aan bandhigayo nuurkeedana aniga waxa weeyaan waa qiso dhab ah waana qisadu waxa weeyaan maaha qof jacayl naga dhaxeeyo la wadaye waa qof anigu aan jacayl u qabay aanana wali u sheegan maanta ilaah idankii inaan bandhigo ayaana maxaa la yiraahdaa halkan u imaaday waana tan hadda halkan maxaa la yiraahdaa sidaas weeye runtii marnabana mid aan ka maarmi karayay ma ahayn inaan baraha bulshada inaan maxaa la yiraahdaa jacaylkayga u sheegto qofkaas waana qof aad iyo aad igu dheer waa qof runtii aan aad u jecelahay qof ma ahee waa shakhsi magaciisa la yaqaano waana shakhsi aan jacaylkayga halkan uga sheegi doono hadduu eebaydmo jacaylka u qabo wali uma sheegna dhacday laakiin waxa rabaa inaan inta uga sheego ma ka qurux badneed qofka inaad raadiso oo si bareefada ugu sheegtid horta walaalkayo waa mahadsan tahay runtii way fiicneed taasi waana sidii ugu habooneed talaabta maxaa la yiraahdaa sidii talaabada koowaad la sameeyay lahaa taas ay ahayd kuna quman ninka ragga ah ama wacdi kasta loo mari lahaa arinkan anoon hadal ku dheeraan nuxurka jawaabtana aan ka soo daahin waxa way fiicneed maxaa la yiraahdaa Yunaniyo way fiicneed muddaan isku dayay muddo wallahi taqriiban 2 sano gaaraysa ayaan qofkan raadinayay ilaah amarkiina marnaba iima suurta gelin inaan banaanada aan maxaa la yiraahdaa ka helo qofkaasi dareenkaygana aan u sheegto runtii waxaan go'aan ku gaaray
walow ay marna igu dhacday in maxaa la yiraahdaa in aan arrinkaas aad igu cuslaaday aan faraha ka qaado laakiin mar kasta inaan mar uun sheegan doono ayaa niyadeeda ku jirtay runtii waan sameeyey waana waayey maantana inaan kaamirada horteeda ka sheego ayaa duruufuhu kalifeen mana aha waxaan ku kaftamayo waa arrin jira waana jeclahay qofkaas runtii haddaan halkan ka carabaabayaan ka sheegayaa qofka magaciisa iyo jacaylka aan u qabo xadka uu la egyahay runtii waxa weeyaan sidaas weeye walaalkii qaaliyow micnaha adigu warka soo gaabinayo waxa waaye sheeg qofkan raadisay ma weysay mise waxaaba kuu suurtageli weysay inaad raadisid runtii qofkan inaan raadiyo waxa weeyaan waan raadiyey waan maxaa la yiraahdaa inaan helaa ii suurtageli weysay qofka waan raadiyey dhowr gooran raadiyey meel kasta oon isku dayey ma dhicin inaan qofkii helo masnaba aan u sheego dareenkan qabay markii dambe waxaan ka fursa waayo xal u arkay inaan sheego baraha bulshada ka sheego waana aan jecelahay qofkaas weliba meel weyn bay iga taallaa haddaan dareenka la isku cadaabaynin been baa dad moodi karayaan laakiin anigu dad ma jecliyo qof baan jeclahay ilaahay idankii jacaylka aan u qabana horya dib waa laga arki doonaa qofkaas inuu gaaro ayaan jeclahay hadduu eebeedmo raadiska markii la dhaho loo mid waaye mina adigu muqaab waxaa u raadinaysa face to face ina qofkaasi waji isku aragtiin mise waxaa raadinaysa lambarka kala hadasho oo kala xiriirtay labadaba waan ku raadiyey yunaaniyo labadaba waan ku raadiyey social media ka raadiyey bareefati lambar gaara oo teleefoonadeeda ka raadiyey waan waayey howlo badanaan maray caadiyaan u raadiyey mar baa la xiri gaaray maxaa la yiraahdaa waxyaabo hadda aanan sheegi karin oo runtii waxa waaye maad lagama kacay anoon qofkiina helin ma in laygu maadsado waa jab labaad yaan maray runtii qofkaasi waan raadiyey weliba xataa xilli habeen madooba ayaan raadiyey been haddaan la sheegayn kadib markii meel ay ka dhowdahay aan maqlay dabeedna intaan aad maagay ay heleen maxaa la yiraahdaa ciidan jooga meelaha haddee waa kaasaa walaalkayo maanta dhan noo soo sheegaysay sidaa isku jeclaateen inaa isweysiin macquul ma tahay qofkaas magaciisa inaa nala wadaagtid horta waxa weeyaan waa mahuraan taasu walaalkayo haddaanan ba hawsha dhan oo wado aanan ka bilaabin ama maxaa la yiraahdaa hadalkaba aanan ka bilaabin magaca inaan sheego mahuraan ay ahayd runtii qofkaasi waa qof igu dheer ugu qaaliya runtii niyadduna aad ayay ciriiri ii noqotaa markii aan magaceeda xasuusto ama aan muuqeeda dheehdo hadal anigoon ku dheeraanayn qofkaasi waa qof la wada yaqaano aad iyo aadna ugu cuddoon ka shayda beenna aanan ka sheegin kuna been abuuranaynin run ahaantii waxa weeye walaalkayow qofkaasi meel weyn buu iga yaalaa been haddaan la sheegin qofkaasi magaciisa haddii aan ku dhawaaqo qof la wada yaqaana waxaana la yiraahdaa Naciima Abwaan Qorane yaa la yiraahdaa aad iyo aad ayaan u jecelahay Naciima Abwaan Qorane hadda ayaan u sheegayaa walaashay waxaan leeyahay Naciima Abwaan Qorane kun iyo kow gooraan ku jecelahay walow aadan adigu waxba ka ogeyn weligeynaba inaad aragtayba aanan u malaynayn wax kastoo yahaatana adduunyada wax walba lagu arkaa runtii aad iyo aadan ku jecelahay ayaan leeyahay oo halkan uga sheegaya ka gaarsiinaya ayadoon been turufo maxaa la yiraahdaa danagaara iyo maxaa la yiraahdaa barabagaando midna ahayn ayaan halkan niyadeyda ay waxa ku jira aan ka sheeganaya waxa la yiraahday nin rageed maaha ciilkama baxe ma aha nin rageed ale sababtu waxay tahay nin wax jecel oon haddana jacaylkiisa haduuna sheeganin waa ciilkama baxe kaasoo kalena gob ma ahana gun weeye sababtu waxay tahay jacayl nin qabaahi jikaar ka weyn ama dhib ka daranu ma jiro intaan ka ahay in aakhire cadaabka aakhiro intaan ka ahay runtii qalbiguna ka indhalaayo indhaha lagu sheegana waa qalbiga wallaahi bilaahi aad iyo aad baan mirmir baanba u xasuusanayaa siday ahayd Naciima Abwaan Qorane kun iyo kow goor yaan ku jecelahay abaayo kun iyo kow gooraan ku jecelahay waxaan ahay nin rageed intaan aan laga ragsanayn runtii inta aan ku jecelahay ruux wax jecel inuu jiro u malaymaayo been abuurashana maaha runtii jacayl waa cadaab runtii
jaxiimiyo ka daranaa runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay la yaabaan bulsho badan laakiin runtii waxaan leeyahay gabadhaas Nicimo Abwaan Qore wallaahi yaa bilaahi tallaahi kun iyo kow gooraan ku jecelahay runtii aad iyo aadan ku jecelahay waxaan ahay nin ku dhaqi kara run ahaantii inta nin wax jecel yahay ku jecel ma aha wax madmadow ku jiro waxaan ahay nin rageed wax tari kara kuna dhaqan kara kuna dhisan kara runtii ha fududaysanin baan ku oran lahaa runtii dhexda taakadiyo dhabankaadaan ka helay ninku dheehdaa dhammaysay dhaqaaqi waa allow yaa dheemanay dhowr halaad kaa baxsho dhowr saniyo dheeraad ku dhaqaaleeyo oo dheelmahee dhabtii dhaqankaadan la dhace dhaqsayaa ku guursado dharaar iyo habeen dheemanay kugu wac dhabeel yahay dhuubanee dhammaysan dhalaal aragga muuqaaga dhac markay ku dhahaan dhaayahaygu baa lay dhuftaa dhammilay dhalan rogaayo dharbaaxadii jacaylkaa dhanba mari waxaan rajaynayaa Nicimo inay noqon doonto reerkayga waa sida aan ku rajo weynahay waxaase laga yaabaa in ay bulshadu si kale u fahanto fahanna lama arkay waan ku rajo weynahay 100% waxaana leeyahay Nicimo waxa weeyaan jacaylkaasi beertan qasriga ah ina adeeray habeer darayn bal dib u eego bal inuu dhab yahay in kale dhimirkaaga geli waxyaabii inta gabadhan raadinaysay jacaylkeeda kuqliyaa ku badnaa maxaa kamid ah inta raadinayay gabadhan Nicimo inta raadinayay Allah hadaayay inta raadinayay jacaylkeeda wali waan raadinay laakiin jacaylkeeda inta ku hayay intaan sheegay waxaan kala kulmay waxyaabo ugu la yaabka badnaa kala kulmay oo ku sheegaya taliya horta hadda magaciisa ma sheegi kare shakhsi aad iigu dhow oo walaalkay ah aad iigu dhow nin iga dhow maanta jirin ayaan waxa dhacday gabadhu kulli baraha bulshadan markaas aan maxaa la yiraahdaa ay wax soo dhigtay ninkaas walaalkeeyahi maxaa la yiraahdaa wuxuu aroosay asagoo may gabar kale oo aroosuu ahaa yarkii farxad iyo reyn baan ku galbinay ninkii horseedka ahaa ee akteerka ka ahaa ee arooskiisa qabanqaabinaya hor joogo malxiis ku ahayaan ahaa oo anigu aroosay waa iga si farxad badnaa runtii ninkaasi markii uu 7 galay waxaan is aragnay si kadiisa waxaan arkay isla markii ninkii oo wajigii qabanqaabadii aan ugu dambeeyay ku galbinay oo ku aqal galay igu dambeeyso oo asan 7 dhameysan yaa ku tusaan isleeyahay yaa ilaahay amarkii isla maxaan arkay ninkii si kadiisa waxaan arkay maxaa la yiraahdaa intaan ninkii arkin waxa soo dhacay gabadhu qoraal ay soo dhigtay qola markaas ku amaanaysa waxbay isku soo dardar habeenada kamidaan Facebook-aan ku jiray yaan sawiradeeda anigu waxay soo dhigto iyo ujeedadeeda iyo waxyaalaha iyo horta waan iska taageeri jiray anoon wax dareenaho gaar ah ku qotonto la arag wax kasto yihiin xataa qola aan xataa taageersanay haday wax ka soo sheegto oo ay soo sheer garaydo amaanto waa la amaani jiray comment yaan hadalka ugu daaline wixii soo dhigtay yar commentiyaashan waxaan arkay comment ugu dambeeyay wiilkii aroosay comment oo nuurayo laakiin badan iyo markaas aan aad iyo aad ula yaabo teleefonkayga dhulkan ku dhuftay xatee commentiga soo ugu caay commentiyo amaana sheegayno intii xoogaa waa uu ku jafay hadda adu caay de la isku qoriyo xarbeel ah ma inaan ahayn laakiin uu ku jafay teleefonkayga dhulkan ku dhuftay xaggaan u baxay ninaan raadiyaan badamcaba tartiibtayda subaxii dambe sikadiisa aan ninkii soo aragnay meeshii oo aan farxad u hayay war ninkii dhamay asna oo farxad ii hayay oo ninkii galbinayo hagaajinay aan hadda gabigayguba laabta aan u hayay oon xambaari lahaaba saantu waa dhahayay aniguna feerar baan balaqsiiyaba gabigiisaba والله بين ما
maxaa u gaari waaye faruur dhamaa barato baastamiir noqo tagtay feeraan ku garaacay ninkii dhammaay oo inuu saan yidhaahday macnaha hab aan sii rabno iga filanay yaab iyo amakaag asaga mar dambe u fahmaa maxaa dadkeenna iyo dumarkeenna maxaa kuu geystaan markaasuu sidaad ii dishaad weyday dumarna kuguma ogeyna maxay tahay aaway wuu iska kayday rabayba laakiin wuxuu yidhi beenta aad sheegayda aaweedaanba kugu qaarijinaaba anigii ninkii nin dad iigu dhowaa yaaba sidaas yaan ilaa ay hadda been haddaan la sheegay ninkii walaalkeeya ahaa dhowr goora raaligeli maa ilaa hadda ma raaligeli maxaa dumarkaygu naagta uu qabo aan ka caayaha lay sheegay waa ii gardhigta waa laisku jibaa niyo anoo hadal ku dheeraanayn gabadhaas waxyaabaha ugu yaabka badan oo kala kulmay bay ahayd comment yar oo dee wax uun oo ra'yigiisa kusoo sheegay yana ilkaha uga jabshay midda kaleeto waxyaabo kaleeto oonan hadda waxa weeyaan ka gaari karayn oon kala kulmay waa jirta sida waxaa la yidhaahdaa in aniga nafteydu khatar u gashay dad badan anugu ma ogi inay ayadu jecel yihiin iyo an kaleeto na waxa weeyaan aad iyo aad baa xaniifo iyo xadaaf maxaa la yidhaahdaa wujuxuma iyo noo dhex martay asxaabteyda qaarkood waxa weeyaan runtaan sheegayaa asxaabteyda qaarkood markii ay rabaan inay wax lacag iyo wax iga qaataan ama ay maalinkaas maaragtay ay galaan waxay yidhaahdaan markay arkaan war ma xaajigii abwaanada war haddana waxay tahay galabta kaligaa socotaa lagulama socdee maca taasoo kale ma naga isku ogay waxaas waayo yiri waxaan kugula dirinayno waxaas waayena dhaha markaasaan intaan gebigayga juwakadahayga fiiriyo aniga dhan 120 gooran catar iska baaraan isbuufiyaan fariista gebigiinuba wax meesha joogo dhan in sheeh dalba wax aan tuurayana maba aqaanba lacag wax yar haday ku kaceysay anoo hore ka degtaan arkaa haddana waxaan arkaa marka qaar xatee inta isku dhaxay xarfaantaan waxbay ka heleen ma ogtahay way sii wadayaan sheekada waxa weeyaan waxay leeyihiin waase anigana isla markaan ta farxadii ka badato yaa ilaahay xatee dad meelaha qaar wadada marayaan hebelkaan ninkaan isaqinay war soo gal asxaabtii waa wada fadhidaa maxaa asxaab la maba isnaqaan markii hore xageed waxa igu daraa mid baa igu la dagaali tago meesha igu ceebay tago waa ku sidee u yiri taliye macnaha xagaan mees arag xagaan isku naqaanaa iyo adigu caafimaadka ku dhibaha iga raacdo raggii meesha joogay ayaguna igu qoslayaan marka wala ayagu ay lahaa waxaas oo dhan runtii ma waa meesha de waxa weey anoon lees gaarinaanba ku qarash beelayba meeshii maxaa yeelay maalin kasta xaggan geey xaggan wax dalab xaggan raaci xariif kale oo iska asaguna iska xira asxaabtan la socdo iska yiraahdo anu waa iska gal maragii haddana markii raggii tagaan waa lacag si webigayguba warniyo meesha waa ku qarash beelay gabadhiina weliba ma helin taasoo kale taan jacayl dhihi karaa anigu been haddana sheegay weligay maba marinba